dhidigaba adunba igu dhegan nuglaayo aadi soo dhaweeyo dhaawacii horeen qabay waxaad tahay dhakhtaaraadii muddo iga dhayayso waad i dhiirigelisay haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay gaariga dhaqsanaye ku sidaa ma dheeliyo uma seexda dhinaco qisada heestaasi taar maxay tahay heesta horta nin baaban arkay anigu sheeko kale ka sameeyo yiri nin dhaawac ahaa oo berbera dhakhtar yaala oo berbera oo sidan dhaawac noocaas ma ahayn aan ka sheekeynayo dhaawacan anigu ka sheekeynayo wuxuu ahaa mid qalbiga ah ma ahayn mid jirka marka wuxuu ahaa heeskan nin gabar jeclaa gabadhii uu jeclaa ay muddo wada socdeen uu barnaamijkoodii burburay taasoo ay ka dambeeyeen macnaha in loo diido faamilkii u diidaan gabadhii xilli xunna waa ahayd oo dagaalo iyo dhibaato socotay nin hantilo wax samayn karana ma ahayn isagoo xanuunku gabadhaas ka soo qaaday la buka yaa gabar kale ay barato isagu dan kama lahayn laakiin oo waxaba uu iska dhaafay gabadhi kale si uu bay ilowsiisay wixii hore mid cusub iyo cajalad cusub gelisay software cusub gelisay marka ilowsiisay wixii soo maray oo ka maydhay dhibaatadii oo dhakhtarada ay noqotay alxaasi dhakhtarada caadi noqotay marka waxa dhacday marka iyagoo saa isugu wanaagsan xaaladdu cajiib marayso ninkii uu bogsado kaala arag yaa waa tii dee la qaxaye gabadhii looga yeeray Kenya oo la yiri soo dhaqaaji process oo sponsor iyo waxba soo baxay oo aad xubin ka tahay si marka hawshaas loo dhameeyo kaale marka taar la isku hadli jiray waagaas telefoonada waxa loo soo diray bahalkii taarkii loo soo diray wareeg labada eber ka dhigay labada eber ka dhigay kii baa soo diray waxa la yiri soo dhaqaaji marka fiidkii dambe markuu yimid ay maanta wada hadleen reerkii muqt waa gabadhii xoogaa si kale yimid wuxuu yiri say wuxuu jiraa maanta markaas tiri ma dib kale ma jiree maanta taar baa soo dhacay la soo wacay waxa la yiri ina soo dhaqaaqda sponsorkaas ay jira okay sidii ba way u sheegtay runtii isaga way dhibaysay laakiin haddana wuxuu ka qaban karaa ma lahayn iyadoo laakiin waxay diyaar u tahay hadduu joog yahay inuu iska joogto wuu xisaabtamay marka wuxuu yiri gabadhan reeraheeda haddaa ka reebto adna waxba islama haysid oo ma awoodi kartidba armay roonta inaan fasaxdo haddii aad isleedihiin waa isheli doontaan على فضل سوق وين جروا سكلي سان marka inta wali ma guursan wali ma guursan kadib waxay tiri wuxuu yiri walaalow anu waxba ma dhihi karo yar mana ka celin karo kuma la fasaxi karo dhibaatadu way haysan laakiin waxaan u badiyay inaan ku fasaxo sababtoo ah yiri maanteeto ma kafaala qaadi karo noloshaada waa aragta xaaladda lagu jiray sidaan ku noolahay marka haddii calaf isku leena ama وجعل كانوا شقية وسيلة دونها لكن اسكبح مركزي كتري اوكي هذا ادو ساتر انا ميد كلام كله يغو اوغلو هي وغيران ان اسميرسن ويه مهركي بيتغن و اسميرسدين markay ismeersadeen heesta marka waxa ugu talagalnay reerkaas way ismeersadeen aroortina way baxday روتين واضح لا رب لا قاعد شطي يعني الا iyo xad kala tagi jiray ma qanalaas wax diyaarada xataa ma jirin maxamed 3 man beenaas maxamed xasan oo dadka qaar baa yiraahdaa arintan waxay ku socotaa la foolaba oo qisada abwaanka ma aha cid kalena ma aha fanaanku soo dhaafinaya sidii ku socotaa horta wax badan la yiraahdo way ku socdaan oo aan anigu qaado heeso badan inkastoo dadku sameeyaan wax badan marka waxba igu socdaan xukuma socdaan waxa jirta hees kale oo adigu aad sameysay oo midhaheeda leedahay oo laxankeeda leedahay saan filayo heesta deeqa
bal deeqana cid kale ha saarayna meel qisadeeda adiga ku socon may waxba iguma socon kuwa aan waa laga yaabaa xaasaskayga u qaaday iyo maahane waxyaabo kale ma jiraan inta badan waayo dadka waxaa jirta bulshadaasna ku dhex jira inta badan waxbaad arkaysaa inta badan waxaa laga turjumaa ummadaada iyo dadka dhex joogta marka wax badan ayaa jira dadku siyaabo kale u dhigaan oo fara badan gabar baa beridood arkaya heeso badan oo sameeyey kulligeed ana dusha iga saartay markuu xaaskiisa siyaada markay gabadhiisa isku dhacaan markuu sidan ahaa marka waxay soo samaysay wax yaab leh malaawaal fara badan anu waxaan arkay berbere ka samaysay dhaqtar ka samaysay waan la yaabay laakiin waxba kama dhihin mana jeclayn inaan wax ka yiraahdo isaguna kolley say la noqotan buu u sameeyey waxbuu isku dhufsaday